dowladda Soomaaliya ayaa hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka laga hagayo talooyinka la siinayo dadka uu soo ritaa cudurka COVID-19 iyo kuwa isaga shakisan ee u baahan inay isbaaraan. xaruntan oo si casri ah loo diyaariyay ayaa waxay ka jawaabaysaa dhammaan wicitaanada telefoonada gaagaaban ee u gaarka COVID-19 oo ah 449 waxayna bukaanada ku xirtaa qaybaha kala duwan ee lagula tacaalayo cudurka. القادر وحنا دقمة جبتوا حاولت هذا الدرس كان وهذا حاسب وارك dadka xaruntani soo wacaya 24 saac oo kasta oo gaaraya 4,000 oo qof oo kala jooga gobolada dalka ayaa kala ah bukaano ka sheekeynaya calaamadaha cudurka balse ay xaaladoodu fududahay, bukaano xaaladoodu adag tahay iyo kuwa laga geeriyooday. bukaanada xaaladoodu fududahay waxa ay talooyin caafimaad ka helaan dhaqaatiirta xaruntani ku sugan. bukaanada xaaladoodu adag tahayna waxa ay xaruntani u dirtaa gaadiidka gurmadka degdega ah oo geeya Cisbitaal Martini. bukaanka waa wacnaa waa la xiriirnaa xaaladiisa ayaa hubinaa. bukaanka u baahdo in loo sameeyo gargaar caafimaad waxaan u dirnaa ambulance iyo howlwadeeno caafimaad ee yaqaan bukaanada si loo handaleeyo isbishal bukaanadan oo kale. dan kadib way soo wadaan waxay keenaan centerka weyn ee dawladdu aasasay ee Martini Hospital. dan kadibna waxaa loo sameeyaa gargaar caafimaad. runtii xaruntan waa xarun aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. ilaa hadda xarunta labada cisho ee furneed waa ka shaqeynayay waana soo taagnay waxaana soo wacay bukaano aad u badan qaar uu ku dhacay cudurkii qaar iska shakisan intii cudurka iska shakisaneed oo soo wacday waxaa siinaa wacyigelin oo ku aadan cudurka si loo hortagi lahaa intii cudurku ku dhacayna ama wixii emergency ah markaas oo lagu arko xaalad degdeg ah waxaa la xiriirinaa qaybta oo isbitaaladka halka maxaa jooga dhakhtar oo la xiriiriyo cuduradaas aadan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeeyo xaruntan. dadka laga geeriyoodo waxa ay xaruntu ku xiriirisaa xafiiska dawladda hoose ee loo diyaariyay ka shaqeynta aaska meydadka looga shakisan yahay inuu geeriyoodeen xanuunka COVID-19 ama coronavirus. dhaqaatiir iyo howlwadeeno caafimaad oo go'aansaday in dadkooda ay u adeegaan waqtigan adag ayaa ka howlgala xaruntan oo muhiim ah bulshada Soomaaliyeed. waan ku faraxsanahay inaan xilligan adag iyo waqtigan adag aan dadkayga u shaqeeyo. dadka xaruntan soo waxay isugu jiraan laba qayb oo ah dad xanuunsan xanuunkoodan uu iska yahay mild badanaa dadkaas waxaan siinaa consultation iyo dad waxaa jiraan xitaa shakisan badanaa dadkaas waxaan siinaa consultation iyo la talin siinaa iyo dad xaaladooda ay tahay emergency sida qof neefta ku xiranta oo kale badanaa dadkaas ayagana waxaan u dirnaa emergency teamka si hadhow ambulance loogu diro xaaladoodana loola sii tacaalo. xaruntan shaqadeedu waa shaqo 24 saac. marka dadka soo waca oo kuwa oo xanuunka ah haddaan laba u kala qaadano qaarka kuwa xaaladoodu degan tahay waxaa loo sameeyaa la talin waxaa jirto waxa urur dhaqaatiir ah oo consultation u sameeya dadkaas oo aan ku xirno oo badanaana lagula taliyo inay xaafadooda isku karantiilaan. kuwa kale oo u baahan xaalad emergency-ga ana markaas waxaan sameynaa in loo fidiyo caawinaad ay u baahan yihiin ama markaas aan u awoodin. xarunta dhexe ee xiriirka ayaa sidoo kale qayb ka qaadata wacyigelinta bulshada khatarta uu leeyahay xarunka faafa ee COVID-19. dadka dhammaan Soomaalidu waxaan u sheegaa inay ay u feejignaadaan wax walba loo sheego. cudurkan ma aha cudur oo diin ku xiran, ma aha cudur dal ku xiran, mana aha cudur oo jinsiyad ku xiran ama cadaan ama madow ma aha. marka inay u feejignaadaan marka anaga wadankii wax u baranay anaga ardaydiisa ah anaga nagala rabaa inaan wax qabsano. mid kale cudurka hadda wadanku ka jira wuuna baahsan yahay. hirgelinta xaruntan ayaa meesha ka saaraysa jahwareerkii iyo walwalkii ay la kulmayeen dadka Soomaaliyeed ee uu ku cusub yahay xanuunkan khatarta ah ee COVID-19. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.